aayadan tafsiirkeeda si uu idinku caddaado isagoo nebigu akhrinaya waxa u yimi nin saxaabadii ka mid oo waagii hore kristan ahaan jiray cadiy ibn xaatim ataa'iyi ninka la yidhaahdo cadiy ibn xaatim wuxuu ahaa nin kristan ah dabeetana tolkii meeshii ay joogeen markii la jebiyey buu cararay kristankii waqooyiga deganaa buu u tegey roman embayarkiibuu soo galay kadib baa walaashii ka daba timi anaha waa la soo celiyo ninkaasi islaam buu noqday markii hore kristan buu ahaa uu carabka ahaa islaam buu noqday dabeetana isagoo raba inuu islaamnimadii wado ayuu soo galay maalintii koowaad uu nebiga u soo galo wuxuu u yimi isagoo nebigu akhrinaya aayadan qur'aan oo ka warramaysa kristankii oo le kristanku waxay ku gaaloobeen waxay rabbiya ka dhigteen wadaadadii markaasuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow maa cabaduuhu cidi ma caabudin buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wadaadada cidina ma caabudi jirin dadku ilaahay ayay caabudi jireen ama ciiseba dheh marka wadaad cidi caabuday ma jirto sidee baa ilaahay ugu tilmaamay haddaa masalada tan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yeelashaday ka yeesheen buu nebigu yidhi wadaadadoodii iyo axbaartii arbaaban min duuni illaahi waxay tahay buu nebigu leeyahy alam yuxilluu lahum alxaraam wayuxarimuu calayhim alxalaal faatabacuuhum ilahay wuxuu leeyahy war miyaanay u xalaalayn wixii xaaraanta ahaa miyaanay u xalaalaynin wixii xaaraanta ahaa war miyaanay ka xaaraantinimayn baa ilaahay leeyahy wixii xalaasha ahaa dabeetana arrintaa ma ku raace waa maxay wadaadadu waxay sameeyeen waxay yidhaahdeen wixii ilaahay uu sharcigiisa ku tilmaamay inay mamnuuc yihiin bay yidhahdeen waa bannaan yihin wax ilaahay subxaanahu watacaala uu banneeyeyna waxay yidhahdeen waa mamnuuc waa sida qaanuunku yeelo qaanuunku muxuu kale samaynaya khamriga waddanka wuu soo saari karaa waa lagu iibin karaa waa xalaal ilaahayna wuxuu leeyahy waa xaaraan zinada waa la samayn karaa dawrulbaqaaya baa la samayn karaayo dabeetana dawladda cashuuri ka soo gelaysaa dabeetana waa la socodsiinaya waxay nimankani yeelaan uun wax la xalaaleeyey ayay xaaraantinimeeyeen wax la xaaraantinimeeyeyna way xalaaleeyeen nebiguna wuxuu leeyahy markay sidaa yeeleen buu nebigu yidhi baa faatabacuuhum waa raaceen fadalika cibaadatuhum iyaahum buu nebigu yidhi cibaadadaan kuu sheegaya ee ilaahay leeyahy rabbiyaa laga dhigtay kuwa aan rabbiya ahayn waa taasi buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam almadaahib alarbaca iyo wax allaaliyo waxa caalim muslima kitaab qoray amase tafsiiray caalim diidani ma jiro haba yaraadee maaha masale aniga igu kooban waa qadiya ijmaaca ku sugan in qofku haddii uu banneeyo wax alla mamnuucay amase uu mamnuuco wax alla banneeyey inay gaalnimo tahy waa mas'alatu tashriic markaa hadduu baarlamaanku sharci soo saaro waxay ka leeyihin fakulluhum kafara hadday baarlamaankaasi sharcigaasi intay dejiyaan ay isku raacaan iyagoo og ilaahay kitaabkiisa kaa mid khilaafsan inuu dejiyey